ما سنتاي صاحب مركان عجعله إن سود ويا صاحب خالية oo maanta garabkayga fadhiya walaal Aamir maxaa lumiya waqtiga qof kan yani maxaa waqtigiisa lumin karo muxuu ku weyn karaa waqtigiisa soo dhawow walaal waa markaagii walaal Ashraf aad baad u mahadsan tahay dabcan su'aasha hadii aan ka jawaabo waxay la tahay dabcan markaan ka hadlayno waxyaalaha waqtiga lumiya aad bay caan u tahay aniga Soomaali ahaan markaan ka hadlaynona waa wax la wada yaqaan oo caan ah insha Allah qodob ahaan waxa ugu horeeya aan isleeyahay waxyaalaha maanteeto yani lumiye waqtiga waxa kamid ah fadhi ku dirarka waa midka ugu caansan inta badan aan sameeyno inaan waqti ku lumino qofku casarka soo fadhiisto ilaa 20 ilaa 3 saac 4 saac oo ku sii gaaro midaas waa midka ugu horeeya waqtiyada lumiye waxa kamid ah dib u dhigashada waxa ugu weyn ee waqtiga lumiye waqtigana dila waa dib u dhigashada sida leeyahay waqtigu waa nolosheena maadaama nolosheena uu yahay waxa laazim ah yani inaan ka taxadarno midka ugu dhibka weyn waa inaan makhaayadaha ama fadhi ku dir aan waqti ku dhumino mid labaadna waxay noqon kartaa yani dib u dhigasho inaan yani dib u dhigano wax kasta mid saddexaadna waxa weeyaan bilaa qorshe iyo bilaa jadwal yani labada ugu dardaran ee kamid tahay yani waxay kamid tahay ku ugu dardaran saddexdaas shay يعني فردو كدررك مد لبعض دب الرشاد مد تحاضو أسرنا بلا جدول قف كأنه جدول لهن هدي الصبح كسر صاك على بلا جدول وعاد لهن واحد جدول واحد قرشات كسر عاد لهن هذا مالك سحويا وقت قاعد أقوله ما حيل يكون مجان قانا متى قارن هلك وقت قاعد كل من لهن سلالية وحكوسو قبل يا صاحبي وقتنا كفايدته وقتigu waa nolosheena saalay saaxiib waxaan leeyahay waqtiga laga faa'iideeyo saaxiibada dhamaan sidii looga faa'iideysto waxyaalaha dhumiya waqtiga muhiimadiisa waxa way sheegeen laakiin hal kaliya ku soo gabanaya ala layta shababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala mashibu yani niki gabiyaga markuu hadlay abul atahi inuu harijiniya markuu hadlay waqtiga iyo qiimihiisa wuxuu lahaa allah ma soo laabato yani يا إيجي دليرنمدي على ليت الشباب يعود يوما بل مال المصلات دليرنمدي فأخبره بما فعل المشيب يعني الدقنمدو يا شيب نمدو waxay ugu sameysay aan u sheegay sida laaliyad waxa waaye dalinyarnimadu iyo waqtiga uu kamid yahay dalinyarnimadu waqtiga kamid tahay fiiri qiyaamo marka la isweydiinaa laba mid la weydiinaa waqtiga la weydiin doona dalinyarnimada la weydiin doona dhamaan ina ka faa'iideystaan isku day insha Allah halka ayaan anigu ku afneeriyaa insha Allah سلام انت لاقينا بكينا وانت فارقنا بكا ان عطيناها وفانا مدت ايديها بجفا وانت حملنا عناها وجهتنا بالفداء كل ما وجه بتسم لي سكت ابواب الهنا وكل ما شمس شرقت لي احجبت عني سنا كنت اقول انها عظيمه حطمت فيني الرجاء